بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد waxaan bilaabi doonaa koorsadeennii Photoshop-ka aan ku ballanay. Videogan waa video hordhac ah hadduu rabo inaydmo waxaan hordhac ka bixi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo application-ka aan baranayno ee loo yaqaano Photoshop. application-kan ayaan ka bixi doonaa hordhac sida loo isticmaali doono iyo xiisad kastaan u qaadan doono hadduu rabo inaydmo. intaan application-ka hordhac ka bixin waxaa marka koowaad inaan iska hadlo isla aniga kumaanahay horta koowaad, markaas kadib ayaan rabaa inaan xiisadii iyo koorsadii aan dib hore u socono maadaama ay muhiim tahay qofka cashirka uu dhigayo inaad ogaato waxa uu yahay. marka koowaad magacaygu waa Ismaaciil Cabdiqaadir Cabdi, waxaan ahay agaasimaha iyo asaasaha shirkadda Ismaaciilis Program. sidoo kale muuqaalkaygu waa sidaan, haddaad laga yaabo magaalada inay u aragto muuqaalkaygu waa sidaan, miskiinkan ilaahay weeyaan. waxaan qaatay bilada sanadka 2019 hay'adda shirkadda Cafe Technology. sidoo kale isla muuqaalkaygu waa kaasaa. xirfadaha aan leeyahay waxaa kamid ah graphic design, video editing, computer application, Java, GUI, HTML, Python, MySQL, making applications, teaching and training, journalism, health program, CC camera xirfada. dhammaan xirfadahan waa xirfada aniga aan leeyahay oo si shakhsi aan u leeyahay. intaas kadibna qofkii u baahan inuu la soo xiriiro wuxuu la soo xiriiri karaa contactskan halkan uga jeeda si koorsada wixii dhiba ama wixii su'aal ah aan uga jawaabo. koorsada haddii rabo inayd maxaa u samayn doonaa group Telegram ah oo video hadda aad daawanayso qaybtiisa hoose description-ka ah linkigiisa uu yaalo. waxaan isticmaali doonaa groupkaas Telegram-ka ah wixii farsamooyin ah, wixii ogeysiisya iyo wixii maxaa samayna halkaa ayaan ku wadaagi doonaa. halkaa kanne waxaan kusoo bandhigi doonaa koorsooyinka oo dhammaystiran. marka la soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan toos u bilaabi doonaa koorsadeyna caadiga ahayd. farxad gaar ayay ii tahay runtii inaan waqti u helo in aan idiin sameeyo koorso free ah waqti buuxan u helno. hagaag saaxiibayaal, marka waxaan rabaa hadda in aan toos u bilaabno waxa la yidhaahdo koorsadeyna. hadda halkaas ugu gudbo kumaan ahay, waxaan bilaabi doonaa marka hordhac ku saabsan koorsadeyna. marka koowaad Photoshop-ka ayaan rabaa inaan ka hadalno iyo qaabka uu egyahay. Photoshop-ka sidan ayuu egyahay. marka koowaad sida ujeedin qaybtan geeska calaamadan BS waxaa laga soo gaabiyey Bdan photo, Stan waxaa laga soo gaabiyey shop. marka calaamadiisa ama astaantiisa ama loogadiisa waa kana. haddii aad aragto application sidaan ah waxaa ogaataa inuu yahay Photoshop. BS laga soo gaabiyey B oo taagan photo, S oo taagan shop. marka la isku daro waxay noqonaysaa Photoshop. astaantan ama loogadan ayuu leeyahay. taariikhiyan application-kani waxaa la soo saaray 1987. waxaa soo saaray laba nin oo walaalo ah oo la kala yiraahdo Thomas iyo John Cannell. waxay ahaayeen labadii shakhsi waxay ahaayeen laba shakhsi oo PhD ah sida halkan uga jeedaanba. waxay ahaayeen laba shakhsi oo PhD ah. sidoo kalena waxay sameeyeen labada wiil shirkad la yiraahdo Adobe. shirkadda weyn ee aad maqashay oo application-adeeda oo dhan ay ka horeeyaan magaca Adobe waxay sameeyeen labada wiil. waxayna aasaaseen sanadka 1987. waxayna ahaayeen laba nin oo saaxiibo ah oo wata shahaadada levelka PhD. intaas kadib waa maxay Adobe Photoshop? markii aan dhahno bal aan qeexitaan aan ku samayno barnaamijka wax lagu naqshadeeyo ee Photoshop-ka uu wajiyo badan yahay. يعني وقيحتان بدنيها حداد مقشو وجيب بدنيها وحاول جيدا وقيحتان بدنيها. لكن أنا أهان وعن كوسو كوبيا جملنا صوص عطوة Photoshop ونقشديه لو نقشديه صورنا لو نسميه
boorarka xayeysiinta iyo ID kaariska iyo wax kasta oo sawir ama boor ama warqad kuseeya ayaa lagu naqshadeeyaa. marka haddii lagu dhaho waa maxay Photoshop, waxaa leedahay waa naqshadeyn lagu naqshadeeyo sawirada laguna sameeyo boorarka xayeysiinta ID kaariska iyo wax kasta oo sawir ama boor ama warqad kuseeya ayaa lagu naqshadeeyaa. waa maxay shaqada uu qabto Photoshop? marka shaqooyinka uu qabto waxaa kamid ah waxaa lagu naqshadeeyaa sawirada kuwaas oo kamerada lagu soo qaaday iyadoo la qurxinayo. waxaa sidoo kale lagu sameeyaa boorarka ganacsiyada kuwaas oo ganacsi xayeysiin u ah. waxaa sidoo kale lagu sameeyaa ID kaarada aqoonsiyada ah. waxaa sidoo kale lagu sameeyaa koobka buugaagta. waxaa sidoo kale lagu sameeyaa shahaadooyinka pamphlets-ka. way badan yihiin wax walbo design soo hoosgala waa lagu sameeyaa Photoshop. sidoo kale sidee ku baran kartaa marka Photoshop-ka? Photoshop waxaad ku baran kartaa marka hore waa inaad leedahay hami sare. markaad shaygan hami ood u hayso waa shay ku suurtagelinaya waxaan inaad joogtayso. marka labaad waa inaad leedahay go'aan oo aad kaga go'an tahay inaad barato Photoshop-ka. sidoo kale waqti si oo u gaar ah intaan markaad sameyso hami aad leedahay oo aad go'aan leedahay waa inaad waqti siisaa qayb kamid ah. maxaa ka faa'iideysaa barashada Photoshop-ka? waxaad ka faa'iideysaa qof xirfad leh oo aad u heersareeya ayaa noqonaysaa. sababtoo ah Photoshop wuxuu ka mid yahay xirfadaha la barto aad u sarsareeya. sidoo kale waxaa noqonaysaa adiga ayaa qabsanaya hawl kasta. uma baahnid inaad qof u dirsato, uma baahnid inaad qof design u dirsato. wax walbo gacantaada ayaa ka samaysanaysaa. sawirada adiga quruxsanayo, sawira soo gashay adiga gacantaada quruxsanayo. waxyaabaha ka faa'iideyso ay barashadiisa. sidoo kale lacag ayaa ka sameyn kartaa barashada Photoshop-ka. lacag ayaa ka sameyn kartaa waxa uga shaqeyn kartaa shirkadaha waaweyn. xilligan joogay shirkadaha waxay u baahan yihiinba qof yaqaano ama qof designer ah. sidoo uu egyahay Photoshop marka Photoshop lagu sheegay qaabkan uu egyahay magaci BS ayuu wataa. qaabkan ayuu u egyahay marka uu soo kacayo. haddii uu dhaho Photoshop sidoo uu egyahay isla sidaan ayuu egyahay. sidee computerka loogu shubaa insha Allah waxay noo noqon doontaa cashirkeena xiga ana cashirkeena labaad. waad ku mahadsantihiin daawashada cashirkan. waxay noo balan ah cashirkan iyo kan xiga haddii Ilaahay yiraahdo. waan filayaa inaad ka faa'iideen.